بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن داودين بالكستو joogtiin iyo xilli kasta idin tahay halkani waa Voice News xarunta ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaa la soo gaaray waqtiyadeennii soo gudbin jirnay warbixinada dalka gudihiisa iyo dhammaan caalamka intiisa kale warka waxa idin akhriin doontaa binimadan caawa doore bilaali ka noqdaan aniga Samsom Cumar Cabdilaahi qodobada warka ugu door karnad ku maqal doontaa binimadan caawana waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay komishinka cusub gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya oo qaabilay safiirka u fadhiya dalka Turkiga Soomaaliya bangiga dhexe ee Soomaaliya oo amray la xayiro dhammaan baakoonada gaarka ee shirkadda Forex ay ku leedahay gudaha dalka Soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga oo daharaad sameeyay kaga soo horjeedaan masaajidadii dhawaan lagu gubay gobolka Axmaarada ciidamada booliska Soomaaliland oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen gaari habeenkii xalay la baxsaday daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warkeedii ku hayna habeen badan caawa